barta bulshada ee Soomaalidu ay ku badan tahay gaar ahaan Facebook-ga ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa lagu soo bandhigay sawirro ka muuqday calanka Koonfur Galbeed ama astaanta lagu garto dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana sawiradaasi ay u badnaayeen caruur haween iyo dad kale si weyn loogu dhex yaqaano siyaasadda dalka kuwaas oo gadigooda xirnaa marooyin ay ku xardhan yihiin astaanta calanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dadiyowgan kala duwan ayaa ujeedkoodu ahaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xuska dabaaldegga munaasabadda calanka Koonfur Galbeed oo ay sheegeen inay ku asteesan tahay 13 bishan ee November ee aynu ku jirno taas oo ilaa iyo hadda aanan la xaqiijin maalinta saxda ah ee loo asteeyay calanka ama la xusi karo muran iyo dood dheer oo bulshada dhex martay kadib waxaan arrimahaas iyo kuwa kale aan wax ka weydiiyey ex-xildhibaan hore Koonfur Galbeed Cabduqaadir Dhagacade oo ka mid ah dadka u dhunduleela arrimaha Koonfur Galbeed isla markaana goobjoog u ahaa naqshadeynta calanka iyo loogada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulkan runaantii waxaan ka mid ahaa guddigii farsamo ee dhisay maamulka oo ka koobnaa 18 qof magacayga waa Cabduqaadir Dhagacade xildhibaan hore Koonfur Galbeed haddana ka mid ah maamulkan Koonfur Galbeed waxaan rabaa inaan dadka u bayaaniyo maalinka maanta aan ka arkay social media dad badan ay soo qorayeen ama u dabaaldegayeen maalinka calanka Koonfur Galbeed ay lahaayeen arrinka asiga waa misleading lagu samaynayo dadka reer Koonfur Galbeed sida dhabta Koonfur Galbeed calankeeda dastuurkeeda iyo astaanta dawladaba waxaa la aasaasay 7 November 2014 taariikhdaas ayaa maalinka loo codeeyay ergadii ka koobneed 378 xubnood ee laga kala keenay 3 gobol ee Koonfur Galbeed ay u codeysay in Koonfur Galbeed ay dawlad noqoto maalintaas ayada ayaa marka waxay tahay maalinta calanka iyo astaanta iyo dawladda Koonfur Galbeed maalinka ay jirsadeen waa maalinkaas waxaana ka soo wareegatay 7 sano marka maalinta 13 la sheegay social media ilaa iyo maanta la wadwaday la xalan arkayay ma garan kara meesha laga keenay dadka keenay 13 November iyo waxa ay ku saleynayaan taariikhaha kale ee jira ee Koonfur Galbeed for example maamulkii 6 gobol ee hore 2002 I mean bishii April 2 ee madaxweynaha ka ahaa Dr. Xasan Maxamed Nuur Shaar Guduud maamulkaas taariikhda la dhisay waa la yaqaanaa waxay ahayd 2 April 2002 maamulkii kale 6 gobol ee ka dambeeyay madownuuna madaxweynaha ka ah ee lagu murmay asna sidoo kale xilliga la dhisay waa la ogyahay maamulkii ugu horeeyay Koonfur Galbeed dadka dega ay mar sameysteen wuxuu ahaa kii 1995 laga dhisay magaalada Baydhabo maamulkaasna magaciisa wuxuu ahaa Maydangning la dhahay maamulkaas waxaana markaas maamulkaas hoggaan ka ahaa Dr. Xasay Allahu naxariiste asna maamulkaasna waqtigaas u ahaa marka 13 November oo la leeyahay maalinta calanka Koonfur Galbeed aniga ma garan kara meesha laga keenay taariikh la qaldaayo dad taariikhdooda la qaldaayo baan u jeedaa ma arko wax loo dabaaldego sababtoo waxa la rabaa waxa uu dabaaldegaysid inay wax ku salaysan yihiin deedkaas aad adigu dabaaldegaysid maxaa la qabtay maxaa la sameeyay maxaa la soo kordhiyay arana aniga 13 November tan calanka Koonfur Galbeed la hada meel laga keenay ma garan karo calankan markaas Koonfur Galbeed ee 3 gobol hadda jiro calankan anigoo Cabduqaadir Dhagacade ayaa design gareeyay anaa sameeyay calankan qaabka hadda uu yaalo anaa u dhigay astaanta dawladda sidoo kale anaa design gareeyay anaa sidaas u sameeyay marka hadda cidii dood ka qabta ee 13 November wax la sameeyay wax la qabtay waxay qabatay ayada noo sheegayso afyeenka malaaqyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Malaaq Deerow Yacquub oo ah dadka wax badan laga weydiin karo taariikhda
iyo waayihii ay soo martay dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka aan hordhigay su'aasha xilliga la sameeyey astaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo cidda samaysay. runtii baryahan mayleys la dhexmarayay taariikhda calanka koonfur galbeed Soomaaliya marxaladooyin badanna mari madaxweynayaal badanna mari runtii shan madaxweynaha mari Dr. Hassan ka horeeyay Dr. Shargaduuda Kihigi Madaxweyne Maxamed Kihigi Maykihigi lanka la raawo Sharif Hassan Sheekh Aadan Maykihigi madaxweyne Cabdisiis Laftagareen koodi ahaan intaba goob joogan hayaan intaas dawladood la dhisay magayaal badan la haayeen laakiin aruursha may badan ay koonfur galbeed 25 November 2004 may la ansixiyay dastuurkii koonfur galbeed ee lita gobol isla bilaasow 27 iyo lama maalmood hal maalin dhaxayti halkaas maalmood nasasho hayti calanka koonfur galbeed oo la suro mayn koreeytay 27 November 2004 maalintaas edisiya calankaas ka suri hatta ciidamadii markaasow salaanta saar lahayti calanka salaan saar lahayti badana walno shal wadadi adiga tuman iko qof oo ciidamada hayaan برشوب مركز حلشوك وايان dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay astaan u gaar ah oo uu kaga duwan yahay dalalka kale ee caalamka iyo maalin la og yahay oo la xuso balse sanadahan dambe waxaa la arkayaa calamo badan oo ku soo kordhay dalka. Maxamed Deeqsiir Jito, RTN TV, Baydhabo.